والله أنا ولي وانسك جعلان أن ترتو الحمد لله لكن مركي كوادي Soomaaliya laga helo hadda waa ku qanacsanahay waxaa macquul ah inaad horay u aragtay garaash lagu qurxinayo gawaarida ama lagu dayactirayo midkooda soo halaabo balse ma aragtay goob lagu qurxinayo ama garaash lagu qurxinayo bini aadanka sheeko ayaan idinkaga haynay nala daawado waa xarun lagu qurxiyo dumarka iyo ragga midkooda doonaya in wax laga bedelo qaab dhismeedka jirkooda sida in cayilka laga yareeyo qofka in loo weyneeyo qaybo kamid ah jirkooda iyo in loo sameeyo bishimo waaweyn qofkii ay dooqiisa tahay Filsan waa macaamiil si joogto ah ugu xiran xaruntan Obesity Center oo ah goob lagu qurxiyo rag iyo dumarka. Assalaamu alaykum. Alaykum salaam. Soo dhawo Obesity Center maxaan ka caawinaa? Waxaan rabaa walaal in haaraha iyo madmadowga laga jaro iyo in dibnaha la tiro. Okay walaal waan qabanaa. Okay dhakhtar joogo karan ku jiraya. Kadib waa ku bisakay. Ii jar diyaar baan ahay. xilligan aynu joogno waxay u timid Filsan in loo weyneeyo bishimaha iyo wajiga oo haara kaga yaalay in laga baabi'iyo. markii ay martay shuruucdu u taala xarunta ayna shubtay qarashaadkii looga baahnaa waxaa loo bilaabay hawshii ay u timid ee ahayd in bishimaheeda loo weyneeyo oo sida ay sheegtay weligeedba ay jecleed inay yeelato bishimo waaweyn. Filsan oo loo duray bishimaheeda kuna guuleysatay ujeedka ay socdaalka dheer u soo gashay ayaan wax ka weydiiyay sababta ku kaliftay iyo waxa ay ku dooratay in bishimaha loo duro isla markaana ay weyneysato. wallahi ana wali waan iska jeclaa inaan turto alxamdulillah laakiin markii koowaad Soomaaliya laga helo hadda waa ku qanacsanahay maxay tolay aniga jeclaystay meeshan Obesity Center inaan imaado waxaan jeclaystay inaan dibnaha turto sidoo kale wajiga la qurxiyo oo haar iyo madmadowga laga saaro dookhayga weeyaan inaan dibnaha turto aad baan u jeclahay. xaruntan Obesity Center waxyaabaha kale ee cajiibka ee ka yaabinayo ay qabato waxaa kamid ah weyneynta qaarka dambe ee dumarka iyo kubka iyo in dadka wajiga ka duqoobay ay dib ugu soo celiso waana wax ku cusub magaalada caasimadda ah Muqdisho. Dr. Kamaaluddin Cabdicasiis oo ah aas-aasaha xaruntan ayaan weydiiyay su'aalo ay ka mid yihiin ujeedka u aas-aasay xaruntan waxyaabaha ay qabtaan iyo haddii ay wax saameyn leeyihiin daawooyinka ay xaruntiisa dadku siinayso. dadkii fikirka ka dambeeya aasaasidda xarunta Obesity Center waxay ahayd baahi aan dareemayo in loo qabo xarun dadkii buurnida intay ka dhinto ugu yaraan ayagoo dhuuban ay heli karaan ayagoon tagin gym ayagoon tagin meelo kaleeto wax dhibaato ah ama side effect ah yaraatee ma lahan mana aan botox marka meelo badan lagu duraa waxa lagu duri karaa farorihii waxa lagu duri karaa indhii hoostooda wajigii meel walba oo miin qofka uu ka lahaa waxa lagu duri karaa baridii waxa lagu duri karaa naasihii faraha kubka iyo qof walba meel walba uu sheegto in la isqurxiyaa ceeb maahan mana ahan wax dumarka oo kaliya ay ku kooban yihiin oo halkan waxaa yimaada oo macaamilka ah xitaa ragga balse haddii aynu eegno xagga diinteena islaamka maxay ka qabtaa arrinkan. dhakhaatiirtu hadday cadeeyaan inayna waxan qofka jismigiisa caafimaadaynayn waxba u keenaynin hadda waxba ka dhimi mayso oo shariicadeena islaamku ma diideyso wixii hadda dhakhaatiirtu ay cadeeyaan laakiin waxyaalo badan waxa jirta dhakhaatiirtu intay ku fududaato haddana qofkii saameyn ku yeesho waxa kamid oo kale hadda timaha la beerayo kale dadkii saameyn bay ku yeelatay dadkii samaystay oo abuurtay oo timihii intay operation lagu sameeyay madaxoodii la qalay oo timihii ay u soo baxeen haddana saameyn bay ku yeelatay dad badan waa cadeeyeen inay saameyn ku yeelatay laakiin sidii oo kale inayna noqonin oo waxa la rabaa waxan wax rasmi ah oo cilmi baaris lagu sameeyay rasmi ay noqdaan laakiin haddii intii bishimihii la barariyo jirkii qayb kamid la barariyo oo qofkii dib ku keeno waxaas qofkii naftiisina isaga is dhibaateeyay isagna khalqi abuurid ilaahay buu la dagaalamayaa oo aan wanaagsanaynba
arrintan ah in bishimaha la weyneysto iyo qaarka dambe ee dumarka oo la weyneynayo ayaa ahayd mid caan ku ahayd wadamada caalamka, balse gudaha dalkeena gaar ahaan caasimadda Muqdisho waa wax ku cusub, taasi oo hadalhaynta ugu badan ka abuurtay baraha bulshada maalmihii la soo dhaafay. dad badan ayna la yaab ku noqotay, laakiin dadka samaysanaya adeegan ayaa ku sheegaya in waxa kaliya ay ku doorteen ay tahay kor u qaadida quruxdooda. Safiya Cismaan Cabdullaahi, Shabeelle TV, Muqdisho. si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, gali lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina gali MPin-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.